XW xooga Yuusuf Isaaq Nuur Aadan Marqaan ayaa maanta magaalada Beedhabo lagu oofiyay qisaasta saaxiibkiis marxuun Mustafa Xaaji Xasan Madkuus waxa ay hayeen saaxiibo iyo ehel dadkaysa ka dhow wadaaga wax walbo balse taasi dhinaca kale ayay isku bedeshay markii lagu kala tagay qaybsiga lacag iyo moobeelo markii horeba la soo dhacay dilaaga ayaa soo baxday inuu dilo saaxiibkiis si uu hore ugu qaato isla qoriga uu dilka ku geystay ahaana qoriga marxuumka intaas kuma ekaan si uu waxaasi oo dhan u qariyo ceel ku yaala magaalada Beedhabo loona yaqaano ceel Jilibey ayuu ku riday saaxiibkiis marxuun Mustafa Xaaji Xasan Madkuus dilaaga ayaa intaasi kadib isaga baxsaday goobta waxaana uu gabaad ka dhigtay hooy ku yaala xaafadda Mursal oo Beedhabo ka tirsan balse hay'adaha amniga ayaa ugu dambeyn gacanta ku soo dhigay isagoo dagaalamaya oo dhaawacana qof ka mid ah ciidamada iyo gudoomiyihii hore ee degmada Bardaale sheekada kiiskan waxa ay barmadow ku tahay diiwaanka saaxiibtinimo naxdin yaab iyo filan waa dhinaca kale XW booliiska aadan maxamed xasan ibraahim boqol ayaa isna loo toogtay dilka waayay 65 jira oo kaga digaya isbaaro u taalay leemanka gudaha xaafad ku taala Beedhabo marxuumka dhintay ayaa ka soo dulacay aadan oo jidgooyo ku qabsahay u taalo mid ka mid ah leemanka xaafadda magaalada Beedhabo isla markaana ku dhagan mooto bajaaj si uu u qaato lacag baad ah marxuum Sheekh Cali Axmed oo 65 jira iskuna arkay way joog fududeyn kara xaajada dhaca hubeysan ah ayaa dilaaga u sheegay inaysan ahayn wixii looga fadhiyay askari booliis ah waajibkiisana yahay ilaalinta nafta iyo maalka uu lacag baad ka qaado muwaadin canshuur bixiye ah XW boqol iyo wadaha mooto bajaajka ayaana xilligaasi ku murmayay $1 bixi iyo waa subax hore oo aan suuqgal ahay halka rakaabka mootada ay xitaa ogolaayeen bixinta 15 kun oo shilin Soomaali ah dilaaga oo si jeejasa kaga falceliyay hadalada marxuumka 65 jirka ah ayaa qoriga baadkiisa ku garaacay ilaa markii dambe uu dhinaca kale u rogay madaxana uu kaga dhuftay xabad uu ka riday qori AK47 ah gaashaan la muumin Xuseen Cabdullaahi ku xigeenka xiraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa fulinta toogashada kadib warbaahinta la hadlay taariikhdu markay ahayd labadii bishii koobaad 2014 waxay maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalabka sida qaybta 6aad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedaysane gacan ku dhiigle deble xooga Yuusuf Isaaq Nuur Aadan Marqaan ina Faadumo Wardheere 30 jir ah ku dhashay degan Beedhabo ka tirsan ciidanka taliska qaybta 6aad xooga dalka Soomaaliyeed kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta 6aad ku soo eedeeyay in uu si bareer ah u dilay marxuum Mustafa Xaaji Xasan Madkuus Cali taariikhdu markay ahayd 23 bishii 9aad 2013 kadibna uu ceel ku riday si uu u qariyo dilkaas oo ka dhacay degmada Beedhabo waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Mustafa Xaaji Xasan Madkuus Cali taariikhdu markay ahayd 4 bishii koobaad 2014 sidoo kale taariikhdu markay ahayd 29 bishii 9aad 2018 waxay maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalabka sida qaybta 6aad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedaysane gacan ku dhiigle deble bool aadan maxamed xasan ibraahim boqol ina Faadumo Carabow Xuseen 24 jir ah ku dhashay degan Beedhabo ka tirsan ciidanka booliiska maamulka Koonfur Galbeed kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta 6aad ku soo eedeeyay in uu si bareer ah u dilay marxuum Sheekh Cali Maxamed Xasan taariikhdu markay ahayd 13 bishii 8aad 2018 dilkaas oo ka dhacay degmada Beedhabo waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Sheekh Cali Axmed Xasan taariikhdu markay ahayd 1 bishii 10aad 2018 maanta oo ay taariikhdu tahay 24 bisha 10aad 2023 waxaa lagu wada fuliyay xukunsanayaasha xukunkii dilka ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida General Liban Ali Yarow ay weheliyaan garsoorayaal ka tirsan maxkamadda iyo saraakiil kale oo fagaraha toogashada xaadir ku ahaa ayaa gabagabadii waxa warbaahinta la hadlay
mid ka mid ah wiilasha uu dhalay marxuum Sheekh Cali Axmed. Alxamdulillah ma nagay Ilaahay ku saka ma nagay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybtii sar qaybtii 60 oo Baydhabo ma ay marxuum Sheekh Cali Axmed oo 2008 bili سيدة تمسي ديدي اللي كدلي مقالة بيضاو الحمد لله هذا مدل السنة كدب ما يجيك حقيقة هلاها أنا أنت أنا الحسن أنا سجاي ما يد إن كمان نجاي محكمة إذا ما قلب كسيدة xukun sanayaashii kiisaskii kala duwanaa ee qisaastooda ku qaatay halkan oo ah maayafuulka oo magaalada Baydhabo ah ayaa tusaale cad oo indhafuraha u noqon karta dhammaan maskax kasta oo ku hoolan ka shaqaynta waxaan ogolaan sharciga. عشت عقير وربعين تقرن كا بيدبو